muddadii uu socday kulankan uu madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu la qaatay madaxda garsoorka oo uu hogaaminayay gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland garyaqaan Aadan Xaaji Cali Axmed qaybna ay ka ahaayeen gudoomiyaasha maxkamadaha kala duwan ee dalka ayaa lagu lafaguray sidii bahda garsoorku ay door muuqdo oo muhiim uga qaadan lahaayeen hanaanka shaqo ee qaranka mas'uulka ay uga yihiin bulshadana ugu adeegi lahaayeen hab ku dhisan cadaalad iyo sinaan loona dardargelin lahaa shaqadaasi garsoorka maadaama ay dalka halbowla u tahay garyaqaan Aadan Xaaji Cali Axmed gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu ku dheeraaday baahiyaha kala duwan iyo duruufaha horyaala bahda garsoorka dalka iyo sida loogu baahan yahay in si wada jir ah wax looga qabto waxaanu awoodda saaray gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland in ay muhiim tahay in garsoorka laga caawiyo dhinacyada gaadiidka dhismayaasha iyo inuu garab istaago madaxweynaha Soomaaliland maadaama ay bulshada ay u hayaan shaqo baaxadeeda leh waxaanu u codsaday gudoomiye Aadan Xaaji Cali Axmed in lagu tixgeliyo madax bannaanida garsoorka madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo la hadlay bahda garsoorka markii uu dhageystay warbixintooda ayaa waxa uu ku adkeeyay inay libinlaabaan shaqadooda kana fogaadaan wax kastoo wax u dhimi kara garsoorka kuna dhiiradaan inay dadka si cadaalada ay ugu adeegaan xil gaarana ay iska saaraan marka ay dadka ay u garsoorayaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay oo uu sheegay in xukuumadda uu hogaaminayo ay tixgelinayso bahda garsoorka si dadku ay u helaan adeeg cadaaladeed oo dhammaystiran waxaanu u ballan qaaday inuu ku garab istaagayo shaqo kastoo wanaagsan oo bahda garsoorku ay la yimaadaan waxaanu madaxweynuhu dul istaagay inuu ixtiraamayay in garsoorku si madax bannaan ay shaqadooda u gutaan waxaanu madaxweynaha Soomaaliland uu soo dhaweeyay fulinta dacwadaha dhammaaday أحمد سكي داير حسن واربعين تقرن كالصومالي لان قدها قصر مدعتوية الصومال لان إيه حرقيسا